burde culays mid saaran wax ka duwan oo raadinay mala culays haduu saaraya kan saaran 7 sano mid ka dheeriya in loo keeno ma filaynin caafimaad iyo aqli iyo maskax korortaan filanaynin laakiin in gadaal loo celiyo oo meeshii joogtay meel ka sii fog la sii geeyo oo dadkii gacmaha is haysto ehel ahaayo qaraabo ahaayo magaalada Buruurde ku wada noolaay oo dad la isu geliyo ilaa iyagu waa iska walaashanayeen way la joogeen laakiin hadda waxaad moodaa in sun lagu dhex shubo sun la sumeeyo waayo magaalada sunta laga dayan lana wixii ilaahay dukuro wax ka qaban karo hay'adaha dawladda magaalada culayska ka jiro ee maanta ka bilowday ama bariyahan ka socday waxaad moodaa maalin walba inuu sii tiro hayo mannahan dad dawladda diidayo mannahan taabagelinta dawladda iyo xor socodkeeda dadka soo horjeeda mannahan degmada Buuliburta sida loo ogsoon yahay muddo 7 sano ku dhadhow waxay ku jirtaa go'doon waxaan nahay dad xabsi kor ka duleelo ku jirana waxaan naga xiran jidadka waxaan lagu taa wax lagu keenay dhuumashaal iyo kontrabaan lagu keenay anagoo danaheeni kaleente iyo ummadii ku mashquulsan ayaa waxa nala leeyahay waxa la furay waxa laga rabaa wala deegaan konsalada laga rabaa ma diidanin laakiin waxaan qabnaa anaga fikir ahaan aragti ahaan inaan maanta arintaas ayna ahayn mid sax inay ahayn ayaan u aragnaa gobolka Hiiraan waa ballaaran yahay wuxuu leeyahay degmooyin badan meel hadda laga dhisay ma jirto ma garan karno Buuliburta xabsigaas ku jirto la og yahay madaxda sare ee madaxda hoose ee gobol iyo heer qaran ilaa heer degmo la og yahay xaaladeeda la og yahay beriga la yiraahdo ma taqaana consular loo dhisayo waxa maanta halkaan inay baaq ka jeedeen isugu yimid guddigii waxgaradkaas qaas ku ahaa oo guddigii farsamada ama guddiga tala bixinta ee beesha baad la yiraahdo waxaan isugu nimid inaan baaq u dirno Hirshabeelle dawladda dhexe inaan baaq u dirno baaqaas oo nagu kalifay bariyahan dambe waxa la waday wax la yiraahdo consulkaas oo laga dhisi rabo sida naloo sheegay Hirshabeelle waxa meesha noogu yimid taariikh hadda saa u sii fogeen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle caadle waxaan ku ballanay in aan ogolnahay in la dhiso consul laakiin waa ballanay maalin dhanbaan ma taqaanaa 3 maalmood ee meeshan joogeen 3daas maalmood waxay la kulmeen bulshada Buuliburta qaybeeda kala duwan oo nooc walba leh waxaan ku ballanay consulka inaanan diidaneen laakiin Buuliburta degmo waaye in laga soo dhiso gobolka Shabeellaha Dhexe qaas ahaan degmada Jowhar in laga soo dhiso gobolka Hiiraan qaas ahaan degmada Beledweyne ballantaas ahayd ballantii waa nooga baxay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ballantii waa nooga baxay sida maanta hadda ka taagan Buuliburta madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirka way nala qaateen waxay dhaheen degmada Beledweyne ayaa boorseeskeeda meel fiican mara degmada Jowhar ayadana meel fiican oo mara labadaas degmo oo aan waxba laga qabanin Buuliburta cid idii iimaanaysa male Buuliburta waxay u baahan tahay faleeba caafimaad qabto intaasaan ku kala tagnay waxa hadda noo yimid muddo 7 gudaheeda boorsooyin wata waxa noo soo degay hotel meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ma garanayno hadda maanta xaaladda degmada Buuliburta ay ku sugan tahay isaaka wax degmada Buuliburta ka dhacay cid laga qarinaa male dhibaatada ka dhacday xafiisyadii degmada Buuliburta inta degmada Buuliburta ku nool oo wada og yihiin hadda waxay maraysaa waxa is haysta waa xafiisyadii iyo ishaag dadkii siyaasiyiinta oo halkaas ku jiray bari waxa loo gudbi doonaa in ishaag dadkii ehelka iyo xididka iyo walaalaha ahay inay dhibaato intaas oo la eg gaarto marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Hirshabeelle waan la hadalnay hoosaan ula hadalnay korna waa ula hadalnay labadii way naga qaada waysi madaxweynaha dawladda Hirshabeelle wali ma aysan imaanin haddii arrinkan wax ka qaban karo waa inuu wax ka qabtaa degmada Buuliburta caafimaad ay u baahan tahay cudur uma baahna meeshaan waxaan isku imaanay waxgaradkii beesha baadacade guddiga meesha galta fadhiyo waxayna u fadhiyaan dhibaatada degmada soo wajahday oo looga timid Hirshabeelle ma diidanin in konsolka la dhis laakiin
meelo badan oo maxaa kuu sheegaa annaga naga sarrayso sida Jowhar oo kale gobolka Hiiraan Beledweyne marka la soo dhiso oo nidaamkaas wixii ka dambeeya in fahanna ayaa loo baahnaa ku ballanay. Absalaan Maxamed Ibrahim Absalaan Habi Somali News Bulaburt.